dowladda hoose caasimadda Hargeysa oo weli ku guda jirta ololihii ay ku baneynaysay suuqa gobonimo gaar ahaan dhismaha xisbiga isla markaana ay kor ugu qaadaysay nadaafadda iyo fayadhowrka ayaa waxa kormeeray ololahaasi guddida heer gobol ee u diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus iyo mas'uuliyiinta dowladda hoose ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay isla markaana faahfaahiyay ololahani ay dowladda hoose ku guda jirto agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo bilicda ee dowladda hoose Khadar Yuusuf Cali xogayaha fulinta ee dowladda hoose Axmed Yuunus Suuxa iyo maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdicasiis Xaashi Cagaweyne waxa wali sii socda ololihii lagu baneynayay suuqa gobonimo gaar ahaan guriga xisbiga oo hawshiisu si fiican ilaa imika ay u socoto waxaan u sheegayaa inay ka dhaqaaqaan oo sanduuqadooda iyo gaadiidkooda ka qaataan tallaabayntan ka xoog roon intaanay la kulmin ee aananu gaadiidka ka xidhin waxa kale oo halkan aad iyo aad ugu adkaynaya dadweynaha gaadiidka raacaya iyo gaadiidleyda hadday yihiin basaska hadday yihiin tagaasida labadaba inay u dhiganugulaadaan dhammaan amaamiirtii ka soo baxday guddidayadan gobolka iyo degmada iyo guddida heer qaranba barasaabka gobolka Maroodijeex Jaamac Xaaji Axmed Cabdi agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bile maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteeko iyo gudoomiyaha guddida heer gobol ee u diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Naasir Cabdiid Maxamed ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay isla markaana bulshada fariin u diray ololahani wuu soconayaa caasimadda dhan wuu wada gaarayaa dhammaan meelaha noocan oo kale ahna waanu banaynaynaa dadweynahana waxaan ka codsanaynaa inay gacan naga siiyaan waxaanu ka shaqaynaynaa nadaafadooda iyo caafimaadkooda marka waxa maanta hawshan laga galay xaruntii xisbiga waxa weeyaan in la baneeyo dadka la kala fogeeyo si xanuunkaasi aanu inoogu dhex fidin xarunta xisbiga ee quruxda badan ee maanta wax laga qabto wax noqonaysaana ay noo banaanaato yeenaan abuurin fawdo waxa laga shaqaynayaa nadaafadiinii caafimaadkiinii in la kala baneeyo oo la kala baneeyo aqalka xisbigu dhammaantii sidoo dhan yahayna waa la xidhayaa waana dhisma lagu xidhayaa waxaan leeyahay dadweynaha cid ku hadhay soo joogaysa ma jirto aynu taa isku ogaano goobta dadkii waa laga raray waa artaasay tahay maalintii hore ahayd waa ogeedeen maalintii dhawadeenu soo galay xanuunla ka dilaacayay haddii roobkaasi nagu soo gaadhlaydo sidii waxaan malayaa saakay wax ka duwani joogi lahaayeen markaa waxaan idin leeyahay dadweynaha si fiican baan ugu mahadnaqay dadweynaha degan xaafadan 6 Juun gaar ahaan xusbiga oo si fiican la shaqeeyay ciidamadii hawshiiba markaa waxa weeyaan hawshuna saasay u soconaysaa Hargeysa oo dhan bay ka soconaysaa halkan qura maaha